السلام عليكم صاحبي وصاحبك انت من ريكاب سoo laabashawna shirkadeedu waxay ka ballamataa in engineer computer oo la yiraahdo Max wuxuu dhameystiraya shaqadiisa isagoo ku sugan dalka Thailand wuxuuna dhawaan u safri doonaa gurigiisa oo ku yaala Mareykanka markuu shaqada ka soo noqdo uuna tago hotelkiisii nin kamid ah shaqaalaha hotelka ayaa siiyay baakadaas waxay ka timid qof uu san aqoon u lahayn gudaha baakada Max wuxuu ka helay telefoon casri ah oo cusub balse si gaar ah ugu ma si fiirsado wuxuu dhigay teleefankii wuxuuna sii wataa qorshayaashiisa laakiin teleefankii ayaa shanqara fariin ayaana soo gasha fariintaas qiimaha hotelku waxa uu noqon doonaa 50% in ka jaban dhamaadka isbuuca Max wuxuu qiimaha weydiiyay shaqaalaha hotelka isagoo arintaas hubinaya waxaana ay u xaqiijiyaan inay arintaas dhab tahay sidaa darteed wuxuu go'aansadaa inuu 2 maalmood oo dheeraad ah si joogo Thailand si uu uga faa'iideysto qiimo dhimistaas habeenkii dambe Max wuxuu daawanayaa wararka telefishinka wararku waxay sheegayaan in diyaaradu islaha raacay burburtay sidoo kale qof uusan ka badbaadin taas macnaheedu tahay in dhammaan rakaabka ay dhinteen Max aad buu uga argagaxay arinta wuxuu garowsadaa hadii uu raaci lahaa diyaaradaas inuu hadda dhiman lahaa laakiin fariin ay u soo dhacday fariintaas ayaana noloshiisa badbaadisay isla markiiba fariin kale ayaa ku soo dhacday teleefankiisa waxaana uu sheegtaa inuu iibsado saamiyada shirkadda la yiraahdo Caesar si uu lacag uga helo Max ma qaato taladaas laakiin markii uu hotelka ku soo noqdo wuxuu daawadaa wararka cusub wararku waxay sheegayaan in saamiyada shirkadda Caesar ay aad kor ugu kaceen dadkii maalgashadayna waxay heleen lacag badan Max aad buu la yaabaa warkan wuxuuna ka xumaadaa inuu fursadda iska dayacay maalintii xigtay Max wuxuu isku diyaarinaya inuu ku laabto Mareykanka laakiin teleefankiisa ayaa u soo diray fariin cusub taasoo dhahaysa u safar magaalada Prague marka Max uu qaataa taladii wuxuu baajiyaa duulimaadkiisa hore wuxuuna go'aansadaa inuu u safro magaalada Prague sidoo kale wuxuu isku dayaa inuu ogaado cidda soo diraysa fariimahan laakiin ma helayo wax raada oo muujinaya cidda soo diraysa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee Prague Max wuxuu raacaa taxi sida ay fariintu u sheegtay wuxuu aadaa hotelka Empire Yuri wadarawalka taxiga uu Max soo raacay Yuri wuxuu bilaabay inuu la sheekaysto Max wuxuuna ka helay teleefankiisa casriga ee uu sito wuxuu ku leeyahay teleefankan wali suuqa lama keenin waa mid ka horeeya telefoonada kale sidoo kale wuxuu u sheegay Yuri inuu ka yimid dalka Ruushka isla markaana uu yaqaan teknoolajiyada wuxuu ballan qaadaa inuu Max ka caawin doono hadii uu la kulmo wax cilad farsamo ah markuu Max hotelka tago wuxuu isku dayaa inuu ogaado cidda soo dirtay baakada wuxuu la xiriiraa shirkadda dirista fariimaha balse shirkaddu waxay u sheegtaa inaanay bixin karin xogta diraha sababtoo ah xeerarkooda ayaa ka soo horjeeda in yar kadib Max wuxuu helaa fariin kale fariintu waxay u sheegtaa inuu nasiibkiisa ku tijaabiyo mashiinka ciyaarta ee nambarka 13 ee casinoga hotelka laakiin nasiib xumo markii uu tagay wuxuu arkay inuu qof kale ku ciyaarayo kadibna Max wuxuu helaa fariin kale oo sheegaysa in ciyaarta afraad ee mashiinkaasi ay guul weyn keenayso Max wuxuu u bandhigaa ninkii ku ciyaarayay inuu 20 euro sii doono si uu booskiisa ugu bedesho wuxuu u sheegay inuu yahay qof aaminsan tirooyinka nasiibka leh gaar ahaan lambarka 13 balse ninkii uu diiday wuxuuna sii wataa ciyaartiisa markuu damcay inuu riixo ciyaarta afraad Max wuxuu ka qabtaa gacanta wuxuuna u bandhigaa 100 euro ugu dambeyn ninkii uu aqbalaa Maxna kursiga ayuu la wareegaa markuu batanka riixo Max wuxuu ku guuleystaa abaalmarin aad u weyn oo gaaraysa $100,000 dhanka kale maareeyaha casinoga oo la yiraahdo John uu daawanayaa wax walba isagoo adeegsanaya kamaradaha amniga aad buu la yaabaa guushaas wuxuu amar siiyaa shaqaalihiisa inay Max si dhow la socdaan isla markiiba Max wuxuu helaa fariin kale fariintu waxa uu sheegaysaa inuu dhammaan lacagtiisa ku ciyaaro miiska balaajaga Max uu raacaa talada wuxuuna hal mar dhigayaa dhammaan lacagtiisa laakiin nasiib wanaag mar kale uu guuleystaa John aad buu la yaaban yahay sida Max mar walba uu guuleysanayo wuxuu arkayaa in Max si qarsoodi u adeegsanayo teleefankiisa ciyaarta dhexdeeda kadib wuxuu u diraa shaqaalihiisa si ay Max ugu sheegaan in isticmaalka teleefanku uu ka mamnuuc yahay casinoga inkastoo uu lacag badan helay Max weli ma qancin wuxuu rabaa inuu helo lacag intaas ka badan wuxuu u baxaa banaanka wuxuuna wacaa Yuri wuxuuna u sheegaa inuu rabo inuu caawiyo si uu u helo hab uu fariimaha u maqli karo iyadoo teleefanka laga eegin Yuri waxa uu sheegaa inuu caawin karo laakiin taas bedelkeeda wuxuu ka codsanayaa inuu siiyo 500 euro arintaas Max uu aqbalaya inta uu Yuri imaanayo Max wuxuu ku laabtaa gudaha casinoga wuxuu arkayaa nin sakhraansan oo isku dayay inuu khasbo saaxiibtiis Max uu dhex galaa balse ninkii ayaa garaaca isla markaana uu miir beela laakiin waxaynu ogaanaynaa inay tahay shirqool oo labadoodu ma ahayn lamaano dhaba waxa uu shaqeeyaa madaxa casinoga waxayna sameeyeen qorshahan si ay u mashquuliyaan Max una koobiyeystaan simiga teleefankiisa si ay u arkaan fariimaha sirta ah markuu Max soo tooso ninkii wuu tagay laakiin gabadhii ayaa dul taagan waxa uu sheegtay in magaceedu yahay Camila Max wuxuu bilaabay inuu la hadlo si xariifnimo leh laakiin wicitaan ayaa ka yimaada Yuri oo hadalkooga joojiya Yuri wuxuu sheegaa Max inuu kula kulmo banaanka isla waqtigaas kooxda John waxay isku dayayaan inay fariimaha ka helaan koobiga simiga Max laakiin nasiib xumo ma helayaan wax raad oo muujinaya fariimaha salka laga soo dirayo banaanka Yuri wuxuu kula kulmaa Max sidoo kale wuxuu siiyaa sameecad Bluetooth kuwaas oo akhriya fariimaha iyagoo cod ahaan taas waxa u sahlaysaa Max inuu maqlo fariimaha isaga oo aan cidina arkin inuu eegayo telefoonka Max aad buu la yaabaa teknoolajiyada casriga ah markuu qalabka
dahabkan helana wuxuu ku laabtaa kasiinooga wuxuu dhigtaa sharadkiisa mashiinka ugu weyn oo uu ku helayay 3 milyan. John wuxuu arkaa sida kalsoonida leh ee uu ku ciyaarayo Max wuxuuna si degdeg ah ugu diray ilaalada amniga sidii hore oo kale. Max uu guuleystaa laakiin markan ciidamada kasiinooga ayaa bilaabay inay eriyadaan Max wuxuu isku dayayaa inuu baxsado balse waxaa qabtay sarkaal FBI oo la yiraahdo Grant. sidoo kale waxaan ogaanaynaa in John oo ah madaxa kasiinooga uu ahaan jiray xubin ka tirsan FBI-da halkaas oo isku yaqaaneen Grant wuxuu Max geeyaa dhismo maran wuxuuna bastoolkii qabtaa madaxa isagoo weydiinaya su'aalo la xidhiidha telefoonka iyo fariimaha. Max wuxuu sharaxayaa in telefoonka uu ka helay baakad isla markaana uu lacag ka sameynayay isagoo raacaya fariimaha uu ku arkayay moobilka. Grant wuxuu arkayaa cabsida ka muuqata Max wuxuuna rumaysanayaa warkiisa. wax yar kadib John ayaa sidoo kale yimaada si uu u ogaado sababta kasiinooga uu lacagaha badan uga guuleystay Max. Grant wuu fahmay inuusan John ka tegayn wuxuuna u sheegaa wax walba. wuxuu u sharaxayaa in FBI-da iyo ururka NASA ay si wadajir u baadhayaan dad Amerikaan oo lacag badan ka helay fariimo sir ah. dadkani dhammaantood waxa u dhasheen Amerika balse waxa la yaab kale ayaa ah in mar walba FBI-du isku dayday inay dadkaas soo qabato ay dhimanayaan iyagoon la ogeyn waxa dilaya. nasiib wanaag Max wuxuu hore ula socday FBI-da ka hor inta aanu moobilka helin. Grant wuxuu sidoo kale u sharaxayaa in ururka NASA ay leedahay barnaamij caqli badan oo AI ah kaasoo la yiraahdo Echelon. waa barnaamijka ugu awoodda badan dunida wuxuuna awood u leeyahay inuu akhriyo oo raad raaco dhammaan fariimaha dalka oo dhan. qorshahoodu wuxuu ahaa in Echelon u adeegsadaan helitaanka halka fariimaha laga soo dirayo. Grant wuxuu u jeestaa Max wuxuuna ku leeyahay haddii aanad rabin in lagugu xidho eedaymaha ah inaad khiyaano ku ciyaartay kasiinooga waa inaad naga caawisaa raadinta halka fariimaha ka imanayaan. Max markan fursad kale ma haysto sidaa darteed uu aqbalaa. Grant wuxuu ka qaadaa telefoonka Max wuxuuna uga digaa inuusan hotelka ka bixin sababtoo ah naftiisa ayaa halis ku jirta. isla markaa kadib Grant wuxuu la xidhiidhaa madaxiisa oo la yiraahdo Brock wuxuuna weydiiyaa in la hawlgeliyo barnaamijka Echelon. Brock wuxuu u ballan qaadayaa in nidaamka Echelon uu diyaar noqon doono 3 saacadood gudahood. intuu hotelka joogo Max wuxuu wicitaan ka helayaa Camilla waxay ku martiqaadaa inuu la cabo cabitaan meel baara oo u dhow. inkastoo Grant uga digay inuusan bixin Max wuxuu ka tagaa hotelkii wuxuuna la kulmaa Camilla laakiin waqtigoodu uu yar yahay sababtoo ah sarkaal FBI ayaa imanaya wuxuuna Max dib ugu celinayaa hotelkii si uu amnigiisa u sugo. dhanka kale Grant wuxuu u celiyaa Max telefonkii wuxuuna u sharaxaa in Max uu raaco tilmaamaha 3 fariimood ee uu siin doono moobilku si lamida sidii hore. Max wuxuu dhigaa dhammaan lacagtiisii sida fariimuhu u sheegeen laakiin markan si lama filaan uu khasaaraya dhammaan lacagtiisii. wuxuu helaa fariin kale oo odhanaysa haddii aad mar kale moobilka demiso waad dhiman doontaa. laakiin nasiib xumo sarkaal FBI ayaa telefoonka ka qaada isla markiina demiya. intaas kadib nidaamka AI-ga ee shirkadda NASA kaasoo magaciisu yahay Echelon wuxuu bilaabaa inuu raadiyo halka fariimuhu ka imanayaan laakiin way argagaxaan markay ogaadaan in meesha fariimuhu ay ka imanayaan ay tahay isla Echelon laftarkiisa. Brock wuxuu u maleeyaa in qof hagingareeyay nidaamka Echelon oo uu isticmaalay si uu fariimaha u diro. wuxuu si degdeg ah u amraa in la demiyo Echelon lana joojiyo hawlgalka. wuxuu wacaa Grant oo uu sidoo kale ku amraa inuu hawlgalka joojiyo. kadibna wuxuu bilaabaa baaritaan si loo helo qofkii jabsaday nidaamka laakiin baaritaanku wuxuu muujinayaa inaysan cidna dibadda ka jabsan nidaamka. habeenkii dambe Camilla waxay Max ku martiqaadaa gurigeeda waxay u korisaa cunto kadibna way wada sheekaystaan iyagoo isku soo dhawaanaya kadibna ugu dambeyn way isku yaacaan. subaxdii xigtay John wuxuu la kulmaa mulkiilaha kasiinooga wuxuu u sheegaa in ururka NASA ay joojisay baaritaankii laakiin mulkiilaha kasiinooga wuxuu John ku amraa inuu isagu si gaar ah u sii baaro halka fariimaha qarsoon ka imaanayaan. kadib John wuxuu markaas wacaa Camilla wuxuuna u sheegaa in Max ay gurigeeda ku hayso isagoo u sheegay in la ugaarsanayo sida dadkii ka horreeyay ee telefoonka helay oo kale. dhanka kale Grant wuxuu telefoonka ka helaa fariin cusub oo tilmaamaysa adrees kale sidaa darteed halkii uu Max ka diri lahaa wuxuu diraa mid ka mid ah shaqaalihiisa si uu aado goobtaas isagoo wata telefoonkiisa sidoo kalena iska dhigaya Max. markuu halkaas gaadho fariin labaad ayaa usoo dhacda waxayna u sheegtaa inuu wadada ka tallaabo. nasiib darrase gaadhi ayaa jiidha ninkii isagoo wadada ka tallaabaya wuuna dhintaa waana isla dhimashadii loogu talagalay Max. Grant uu argagaxaa wuxuu qaataa telefonkii kadibna fariin kale ayaa usoo dhacda iyadoo ku leh lagu soo wareeji Max haddii kale waad dhiman doontaa. dhanka kale Max wuxuu sameynayaa baadhis la xidhiidha nidaamka Echelon wuxuu ogaadaa in ururka NASA aysan kaliya akhrin fariimaha dadweynaha balse sidoo kale u adeegsan karto kaamaradaha amniga ee dalka oo dhan si ay dadka ula socdaan. wuxuuna arrintaa u sheegayaa Camilla si lama filaan ah. Camilla waxay aragtaa nin shiishiyahana oo qori sneebaro wata kaasoo dabaqa kasoo horjeeda kasoo shiishaya. si degdeg ah ayay Max u riixdaa iyadoo ka badbaadinaysa toogashada. kadib waxay aragtaa 2 nin oo soo fulaya jaranjarooyinka dhankoodana u soo socda si ay u dilaan. waxay Max ku xidhaa qol si ay u badbaadiso naftiisa. waxay isku daydaa inay hub hesho laakiin shiishiyahanka ayaa xabad kaga dhuftay gacanta inkastoo ay dhaawacantay. Camilla waxay isticmaashaa bir weyn iyadoo madaxa ka gelinaysa mid ka mid ah raggii albaabka taagnaa laakiin ninkii labaad ayaa gudaha u soo gala. dagaal xoogan ayaana dhex mara. markii xaaladdu faraha ka baxdo Max ayaa ka soo baxa qolka wuxuuna caawiyaa Camilla waxayna wada dilaan ninkii. Max uu argagaxaa markuu arkay xirfadda dagaal ee Camilla wuxuuna gartaa in Camilla ay u shaqayso John oo ah madaxa kasiinooga kaasoo hore u ahaa sarkaal hore oo FBI ah
islamarkiiba John ayaa imaanaya guriga Camilla. Wuxuu Max u soo kaxeeyaa meel ammaan ah. Wuxuu u sheegay in ururka NASA ay rabtay in la dilo Max sababtoo ah wuxuu ogaaday wax ku saabsan nidaamka Echelon. Brooke oo ah madaxa NASA ma ogolaanay in dadweynuhu ogaadaan xogtaas. John wuxuu u sheegaa Max in habka kaliya uu ku badbaadi karo uu yahay inuu raadiyo halka dhabta ah ee fariimahani ka imanayaan. Max wuxuu u sheegayaa John in laga yaabo Yuri oo ah darawalkii taksiga ee Raashiyaanka ahaa uu caawin karo maadaama uu aad ugu fiicnaa tiknoolajiyadda, laakiin John ma ogolaanayo taas. wuxuuna weydiinayaa sidee darawal taksi ah uu u garan karaa waxaysan xataa khubarada ururka NASA aysan garanayn. laakiin Max uu ku qanciyaa isagoo tusaale uga soo qaadanaya sida tiknoolajiyadda Ruushku marar badan uga horumarsantay tan Mareykanka. John go'aan kale ma haysto marka uu aqbalaa dalabka Max. labadooduba waxay duulimaad ku tagaan magaalada Moscow ee dalka Russia si ay ula kulmaan Yuri. markii ay tagaan guriga Yuri una sharaxaan xaaladda, Yuri wuxuu sheegay inay ugu yaraan 3 saacadood qaadan doonto si uu u baadho arrintan. inta ay sugayaan, John iyo Max waxa u baxaan socod. Max wuxuu John weydiiyaa sababta uu uga tagay FBI-da. John wuxuu u sheegaa inuu ka soo horjeedsaday barnaamijka sirdoonka ee Echelon. wuxuu aaminsanaa inuu yahay mid aad u khatar badan, sidoo kale ay khalad tahay in la xakameeyo dadweynaha, la daawado, lana maamulo. wuxuu si adag uga hor yimid Echelon, laakiin cidina ma dhegaysan. markii dambena wuu iscasilay si uusan qayb uga noqon waxyaabaha khaldan ee socda. 3 saacadood kadib waxay mar kale u tagaan Yuri. wuxuu u sheegaa in barnaamijka Echelon aan la jabsan ama la hakin karayn, balse uu iskiis fariimo u dirayo. wuxuu ku fidayaa kombiyuutarada badan ee adduunka. heerka caqligiisa macmalka oo sarreeya awgeed wuxuu sheegayaa in diyaaraddu ay burburayso, wuxuuna xogtaas ka helayaa nidaamkeeda. sidoo kale wuxuu akhriyay fariimaha gaarka ah ee maamulayaasha shirkadda Seeso, wuxuuna ogaa in saamiyada shirkaddu sare u kici doonaan. barnaamijku wuxuu sidoo kale ku fiday kombiyuutarada Casinoga, waana sida uu Max ku guuleysanayay marar badan, laakiin weli lama fahmin sababta programka Echelon sidaas u samaynayo. intii ay sii sheekaysanayeen, ciidan FBI ayaa yimaada. Max iyo John waxay xadaan baabuur si ay u cararaan. FBI-du way eriyataa. John wuxuu si khaldan u galaa wadada tareenku maro, waxaana kusoo socda tareen. waddo kale oo baxsashaana ma jirto. John wuxuu qorigiisa ku dhuftaa shaaga gaadhiga, taasoo ka dhigta gaadhiga inuu rogmado. kadib wuxuu baaskoolad ku qabtaa Grant, laakiin Grant si degdeg ah ayuu ugu sheegayaa in FBI-du aysan doonayn inay dilaan, balse ay rabaan in kaliya Max uu taleefanka haysto, isagoo sheegaya in nidaamka Echelon uu rabo inuu Max kaliya la hadlo. Grant wuxuu sidoo kale u sharaxayaa in ururka NASA ay hadda ogaatay in nidaamka Echelon uu iskiis fariimo u dirayo, waana isla sida uu u sheegay Yuri. Grant wuxuu qirayaa in hadda uu fahmay sida barnaamijku khatar weyn uga yahay waddanka, wuxuuna doonayaa in la joojiyo. in yar kadib ayay fariin kale ka soo dhacdaa taleefanka, taasoo wadata adrees gaar ah, waana isla goobtii Max ka shaqayn jiray isagoo ah security engineering. markii ay kooxdu gaadho halkaas, waxay helaan qol dhulka hoostiisa ah oo xidhan. gudihiisa waxaa yaala serfaro iyo kombiyuutarro aad u awood badan oo ah qaar uu Max hore u rakibay xilligii uu ka shaqaynayay meeshan. fariin cusub ayaa telefoonka kusoo dhacda, waxayna u sheegtaa Max in serfarka gudaha uu u galo si xogta dibadda uu u keeno. Max wuxuu raacaa tilmaamaha, laakiin isla markiiba shaashadda ayaa madoobaata. xataa khubaradii kombiyuutarka ee ururka NASA ma awoodaan inay daaraan, iyagoo niyad jabsan ayay ka baxaan xaruntaas. sarkaalka FBI-du wuxuu u sheegaa in mulkiilaha xaruntan uu ka mid ahaa dadkii nidaamka Echelon ka soo horjeedsaday, tanina ay tahay sababta meeshan looga tegay kombiyuutariskan awoodda badan. Grant wuxuu ogaadaa in Echelon uu u baahnaa serfaradan, waana sababta loo dilay mulkiilaha. Grant wuxuu ku amraa saraakiisha FBI-da inay iska tagaan. sidoo kale isaga, Max iyo John waxay mar kale galaan xaruntii. Max wuu la yaabaa markuu arkay in Echelon uu u guuray serfaradii meesha yaalay, isagoo ka tegaya kuwii NASA. dhinaca kale, Brooke oo ah madaxa ururka NASA aad ayuu uga cadhooday markii uu ogaaday in barnaamijkoodii balaayiinta dollar lagu dhisay uu iskiis isku maamulayo kana baxay gamcahooda. Max wuxuu ogaadaa in Echelon uu iskiis upgrade iskugu samaynayo si uu u noqdo mid aad u heer sarreeya, isla markaana uu ugu faafo dhammaan qalabka tiknoolajiyadda ee adduunka oo dhan. Grant wuxuu wacaa Brooke, balse Brooke wuxuu u sheegaa inuu la hadlay madaxweynaha Mareykanka. sidoo kalena madaxweynuhu uu amray in Echelon loo ogolaado inuu iskiis isku upgrade gareeyo, isagoo u sabaynaya in barnaamijkan lacaga qiimo weyn uu ugu fadhiyo. wuxuu sidoo kale u sheegay in Echelon loogu talagalay inuu ilaaliyo danaha Mareykanka, sidaa darteedna waa in loo ogolaadaa inuu si madax bannaan u shaqeeyo. laakiin Grant wuu diidayaa arrinka, wuxuuna u sheegayaa Brooke inay doonayaan in la joojiyo Echelon wax walba ha ku qaadatee. markay isku dayayaan inay joojiyaan Echelon, fariin kale ayaa ka soo muuqata telefoonka, taasoo odhanaysa ha isku dayin. kadibna shaashadda ayaa muujinaysa in Echelon uu la wareegay dhammaan lacagaha dalka, wuxuuna bilaabayaa hanjabaad ah inuu tirtiri doono haddii la isku dayo in la joojiyo. Max wuxuu bilaabaa inuu si qoto dheer u fikiro, markaas ayuu la hadlay Echelon, wuxuuna weydiiyaa waxa uu dhab ahaantii doonayo. Echelon wuxuu ku jawaabaa inuu doonayo inuu ilaaliyo dalka Mareykanka iyo danihiisa. Max wuxuu ku amrayaa inuu akhriyo koodh gaar ah amase rule number sir ah. kadibna programka Echelon wuxuu bilaabaa inuu akhriyo maqaalada koodharkaas. markuu sii akhriyana, wuxuu ogaanayaa in Echelon laftiisu uu yahay caqabada ugu weyn ee sirta iyo xorriyadda shacabka dalka. sidaa darteedna wuxuu bilaabayaa inuu iskiis isku tirtiro daqiiqadihii ugu dambeysay. kadib Brooke ayaa u soo diray ciidan FBI ah si ay u xidhaan Max, John iyo sidoo kalena Grant, iyagoo ku eedeynaya inay jabiyeen amarka dowladda, sidoo kalena ay dhiligareeyeen barnaamijkii Echelon. kadib markii la kaxeeyey, dowladda ayaa si degdeg ah u sii daysaa si aysan dadweynuhu uga warhelin wixii dhacay. John iyo Grant labadaba waxaa loo soo bandhigayaa
filayaa inay mar kale dib ugu biiraan FBI-da kuna soo laabtaan miiqaamkoodii. dhanka kale Camilla waxay u timaadaa Max waxayna siisaa jeeg 3 milyan oo uu soo diray mulkiilaha casino-ga isagoo uga mahad celinaya Max inuu joojiyay Echelon kana badbaadiyay khasaare badan oo mustaqbalka ku dhici lahayd. ugu dambeyntii magaalada Moscow waxaa layna tusayaa in Yuri uusan ahayn darawal taxi ee uu yahay askari sirdoona oo ka tirsan dowladda Ruushka. wuxuu u sheegayaa taliyihiisa in howlgalkii uu guuleystay barnaamijka Echelon la tirtiray. dowladda Ruushku waxay hore u ogeyd awoodda weyn iyo khatarta uu Echelon u lahaa amniga qarankooda. sidaa darteed waxay si taxaddar leh u qorsheeyeen dhammaan howlgalkan. ujeedadoodu waxay ahayd in la tirtiro Echelon si loo ilaaliyo danaha Ruushka loogana hortago hanjabaadaha mustaqbalka. filimkeenuna halkaas ayuu ku dhammaaday. haddii aad rabtid inaad la socoto filmaanta noocan oo kale ah ee aanu halkan soo gelino si maalinle ah, fadlan subscribe saar gambaleelkana furo. mahadsanid.